guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba iyo adiga oo fayo qaba. Dhaqamo badan cuntada waxay ku darsadaan dhirta lagu carfiyo, taas oo lagu dhalan rogo cuntada oo dhadhan wanaajisa. Laakiin waxaa jira xaqiiqdii hal shay oo aadan doonayn in cuntadaadu aad ku darto: bakteeriya. Bakteeriyada lama arki karo ama lama ogaan karo, oo aad ayay ku jiraysiin kartaa. Bakteeriyada si dhaqso ayay ku badataa goorta cuntada si habboon aan gacanta loogu qaban, gaar ahaan goorta cuntada aan heerkulka ku habboon aan lagu habayn. Goorta cuntada ay ku jirto zoona halis ah oo ah inta u dhaxaysa 40 digrii ilaa 140 digrii Fahrenheit, bakteeriyada si dhaqso ayay ku kortaa oo halis ay gelisaa in cuntada la cuno. Cuntadaada waad ka dhowri kartaa bakteeriyada, oo qoyskaaga waad ka badbaadin kartaa adigoo cuntada geliya meel heerkulkeedu yahay mid saxan oo ka baxsan zoona halis u ah cuntada. Cuntada qabowga ah waa in qabowga lagu sii hayaa in ka hooseysa 40 digrii Fahrenheit. Goorta aad u baxdo in adeega guriga aad soo iibsato, cuntada qabowga ah ka dhig kan ugu dambeeya aad iibsanayso. Tan waxay hoos u dhigi doontaa muddada ay bannaanka sii yaalayso inta adeega aad ku jirto, iyo inta gaariga aad ka gelinayso talaajadaada ama qaybta barafka ee talaajadaada. Cuntada qabowga ah si dhaqso ah u geli talaajada ama qaybta barafka ee talaajada 2 saacadood gudahooda. Talaajada heerkulkeeda 40 digrii Fahrenheit ha joogo. Waxaad ku xaqiijin kartaa adiga oo heerkulbeegga talaajada dhexdeeda kaga taga inta lagu jiro xilliga xagaaga ee kulaylka ama waqtiyada albaabka talaajada aad loo furo. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay in heerkulbeegga talaajada dhexdeeda ku jira aad ka sii qaboojiso. Waxa kale oo weliba muhiim ah in cuntada aad ku kariso heerkul ku habboon. Dadka intooda badan waxay yiraahdaan in cuntada ay kariyaan ilaa cuntada ay uga ekaanayso inta ay kartay, laakiin hilibka waa in lagu kariyaa heerkul ammaan ah. Si aad isaga xaqiijiso, isticmaal heerkulbeegga cuntada. Qaybta ugu adag ee hilibka dhex geli oo fiiri sida uu u kulul yahay hilibka dhexdiisa. Kama dambayskii, cuntada kulul kulaylkeeda ku hay, oo cuntada qabowga ahna qabowgeeda ku hay ilaa aad ka sugayso inaad cunto. Cuntada kulul waa in lagu hayaa 140 digrii Fahrenheit ama ka kulul. Weel ayaad gelin kartaa oo aad dul saari kartaa makiinada cuntada oo kulaylkeedu hooseeyo. Isticmaal makiinada cuntada sii kululeysa ama isticmaal makiinada cuntada sii yara kululeysa oo cuntada kulaylka ku haysa. Cuntada qabowga ah waa in lagu hayaa 40 digrii Fahrenheit ama ka sii qabow. Barta barafka ayaa sii dul saari kartaa baaquli ku jira cuntada qabowga ah, ama qayb yar oo kaliya ka soo saar talaajada marka la gaaro waqtiga cuntada, oo kadibna ku soo dar marka cuntada qabowga ahayd ee la cunay ay sii dhammaanayso. Cuntada oo lagu sii haynayo heerkul ku habboon oo ka baxsan zoona halis u ah cuntada waxay qoyskaaga ay ka dhowraysaa in cuntada ay ka qaadaan jirrooyinka halista ah ee cuntadaada ka dhasha. Wadajir uga wada shaqaynaynaa si aan u dhisno qoysas fayo qaba iyo adiga oo fayo qaba.